caalamkan digitalka ah web browsersku kaliya tamahan tools loo adeegsado in lagu access gareeyo internetka waxayna si weyn saameyn ugu leeyihiin ammaanka xogta iyo qaabka loo ilaalinayo browserska caanka sida Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge iyo Safari dhammaantood isku mid maahan browserska jiraana intan way ka badan yihiin waxaa sidoo kale ka mid ah browserska caanka Brave, Tor oo aad loogu adeegsado dark webka iyo Arc oo ah mid caan ku noqday user interface-ka quruxda badan ee uu leeyahay haddaba waxaa jira hal meel oo inta ugu badan browsers ka sameeyeen yihiin waana Chromium muuqaalkan maanta waxaan u soo qaadanaynaa waxa uu yahay Chromium iyo sababta inta ugu badan browsersku ay ugu dhisan yihiin Chromium waxaan soo kale muuqaalkan ugu soo qaadanaynaa browserska ugu fiican dhanka ammaanka ee habboon tahay inaad adeegsatay browseradu waxyaabaha kala duwan waxaa ka mid ah xawaaraha user interface-ka ama shaashadda ku soo baxaysa markaad soo gasho iyo design-keeda security-ga iyo sida loo maamulo xogta shakhsiga browserka Chrome waxa uu caan ku yahay extensionska badan ee aad ka heli karto Firefoxna waxa uu caan ku yahay ilaalinta aadka u tayada sareysa ee uu xogta ilaalinayo browserka Brave waxa uu caan ku yahay inuu focus ka saaro kor u qaadida ammaanka xogta isticmaalayaashiisa iyo inuu blogareeyo ama ka xadibo xaysiimaha tirada badan ee website-ku adeegsadaan intixraacyada ee website-ka qaali ka reebaan dadka soo booqanaya Chromium waa project open source ah yacni cid kasta isticmaali karto kaasi ay ku jiraan asaasiyaadka ay tahay in browseradu lahaadaan si u shaqeeyaan oo u noqdaan kuwo jira haddaba browsers badan ayaa project-kan adeegsada waxaana ka mid ah browseradaasi Google Chrome iyo Microsoft Edge browserada ku dhisan Chromium-ku waxay wadaagaan oo ay adeegsadaan teknoolojiyada isku mid ah taasi oo qaabeynaysa xawaarahooda security-gooda iyo meelaha ay ku shaqeyn karaan ama compatible-ka leeyihiin waxyaabahaasi inta badan way iskaga eeg yihiin marka laga reebo browserka Firefox iyo Brave oo iyagu ku dhisan Chromium balse iyagu si gaar ah focuska u saara ammaanka iyo ilaalinta xogta isticmaalayaashooda taasina waxay ka dhigaysaa kuwa lagu doorto shaqadaasi waxaa jira browser dhawaanahan soo caanbaxay kala duwan dhammaanba browserska kale waxaana loo magacaabaa Ladybird haddaba muxuu kaga duwan yahay kuwa kale browserkani ugu horeyn waxa ugu weyn ee kaga duwan yahay waa inuusan ahayn Chromium ninkan lagu magacaabo Andreas Klein oo ah developer ayaa si iskii ah u bilaabay developgareynta browserkan Ladybird oo ay muhiimadu tahay inuu noqdo mid xawaare leh ammaan fiican sidoo kalena ulays ahaan fudud inkastoo uusan weli si dhammaystiran u soo bixin lana filayo inuu soo baxo 2026 haddana waxaa la filayaa inuu noqdo mid si weyn uga bedeli doona tartanka browserada hadaynu soo qaadano qaar ka mid ah browserska ugu ammaanka fiican ee tahay inaad adeegsato waxaa ka mid ah Tor browser oo isagu gebi ahaantiisa lagu talagalay inuu noqdo mid ammaan ah waxaana lagu adeegsan karaa dark webka iyo surface webka labadaba khaasna uma ahan dark webka dadka qaar ayaa u maleeyo inuu khaas u yahay dark webka balse labada dhinacba waa loo adeegsan karaa waxaa sidoo kale browserska ammaanka badan ka mid ah Brave iyo Firefox aynu hore uga soo hadalnay waxaa sidoo kale ka mid ah browserska aadka u ammaanka badan browserka lagu magacaabo DuckDuckGo aadna ku adeegsan karto taleefankaaga iyo kombiyuutarkaaga muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egyahay ilaa inaad la wadaagto asxaabtaada kuna soo biir Kaytech Soomaali mahadsanid